xaflad si weyn loo soo agaasimay looguna dabaaldegayay munaasabada kowda luuliyo sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay markii uu dalka Soomaaliya xorriyadda ka qaatay wadamadii gumaysiga isla markaasna ay israaceen gobolada koonfureed iyo kuwa waqooyi ayaa waxay ka dhacday magaalada Hyderabad ee dalka India xafladan oo lagu qabtay gudaha jaamacadda GNTU oo jaamacad ay dhigtaan arday badan oo Soomaaliya ayaa waxa soo qabanqaabiyay ururka ardayda Soomaaliyeed ee ka jira magaalada Hyderabad waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan halkaas waxaa khudbado ka jeediyay qaar kamid ah ka soo qaybgalayaashii xafladda iyo waliba ardadii soo qabanqaabisay waxaa dhextaal u ahaa barnaamijyo suugaaneed oo dadka lagu baraarujinayay xafladan ayaa waxaa sidoo kale garab socday xaflad kale oo loo qabtay arday Soomaaliyeed oo ka qalin jabisay jaamacadaha magaalada Hyderabad ee dalka India iyo waliba iskuulada sare ee magaaladaasi gabagabadii xafladda ayaa waxaa la saaray calankii Soomaaliya ayadoo dadku dhamaantood ay ku dhawaaqayeen heesta calanka wajiyoodana ay ka dareemaysay farxad iyo waxaan dhameystay maadada digriga Bachelor of Commerce and Computer hada ayaan ugu faraxsanahay caawi waxaan qiyaasi karayaa 3 sano kadib wixii aan soo shaqeynayay inaan helay waxaan sidoo kale aan u hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed dhammaan konton guuradii ka soo wareegtay maalintii xornimada la qaatay fursada university uu noo siiyay arintaas waana mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacayga yahay Tahliil Xasan Maxamuud dhigtana jaamacaddan hadda iminka joogno qaybta Institute of Science and Technology MSc Biotechnology first year marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladan qiimaha iyo qaayaha badan oo xaflad aad ugu qiimo weyn sanad guurada Soomaaliyeed kowda luuliyo konton san jirtay ay tahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaana u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ilaahay sanadan sanadeedii kale naga dhigo kuwo guul iyo bashbash iyo barwaaqo ku gaaro sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ardayda kusoo beeganta qalin jabintooda xafladan ayagana waxaan leeyahay kuwii ku anfaco dalkooda anfaco ilaahay ka dhigo aniga magacaygu waa Maxamed Cali Axmed waxaan ka qalin jabiyay maadada MBA jaamacaddan aan joogno ayaan ka qalin jabiyay aad ayaan ugu faraxsanahay 5 sano oo aan mataqaanaa degree master aan soo dhigay ka bacdi waxaan aad ugu faraxsanahay maanta iyadoo lagu soo bigay xafladda qalin jabinta maalinta guurada Soomaaliyeed ee xornimada qaadatay waxaan rajeynayaa insha Allah sanadkiisa dambeeto inaan ku gaarno barwaaqo iyo bashbash iyo mataqaanaa maalin wanaagsan waxaan u rajeynayaa ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay noqdaan kuwa isku xirnaada oo isku duubnaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waxa weeyaan Axmed Maxamed Axmed Kaarshe waxaan ku magac dheerahay indhayare waxaan dhameystay maadada Medical Laboratory Technology waxaan ka dhameystay jaamacadda Dr. NTR University waxaa caawa farxadii ah in qalin jabinteedu aan kala qayb galo ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Hindiya magaalada Hyderabad sidoo kale waxaan hambalyo gaarsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan kala qayb qaadanayno sanad guuradii ka soo wareegtay xornimada konton sano laga soo wareegay waxaan kala qayb qaadanayaa sanad guurada 26 Juun iyo kowda luuliyo sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaan hambalyo ka gaarsiinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Maxamuud Maxamed Faarax
waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda Madras qaybteeda information technology runtii waxaan ahay kasoo qaybgalayaasha xafladani runtii waa xaflad aad iyo aad iigu qiiro badan runtii waa xaflad laba barnaamij wadata mid waa xaflad qalin jabineed oo ardaydii Soomaaliyeed ayaa maartay qalin jabin sameynaysa midda labaadna waa sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay markii aan ka baxanay dhibaatadii nagu hayeen gumaystayaashii ee waddankeena qarribay run ahaantii farxaddeeda lama soo koobi karo caawo waxaana jecelahay inaan maartay meel walba oo maartay Soomaalida joogto aan gaarsiiyo farxaddeeda runtii waan ku faraxsanahay in TV-ga Universal inaan fursad u helno oo naga maartay nala qaybsado farxaddeena aynu ka soo qayb galnaa halkaan wadnaasintay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Maxamuud Cabdigaas Xasan waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay kooda luliyo oo ah maalintii xornimada qaadatay Soomaaliya taasoo ay kasoo wareegtay hadda muddo half a century 50 year konton sano ah ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay farxaddeedana waxaan la qaybsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay adduunka joogaan xafladan oo ay noo weeliso waliba qalin jabinta ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan qalin jabisay ayaa iyaduna aad iyo aad u farax badnayd waxaanan aad iyo aad ugu mahadsanahay kasoo qaybgalkaygaan kasoo qaybgalay xafladan aanan kala qayb qaatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed sanad guurada kontonaad ee kasoo wareegtay xornimadii Soomaaliya aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna sidoo kale ayaan rajeynayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa sanadkan kiisa xiga xornimada guurashada labaad inaan ku gaarno annagoo waddan dhisan ah oo dowlad leh ilaahayna saasaan baryayaa wasalaamu calaykum bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa Maxamed Cabdisaaq Qursame waxaan ahay publicity minister of Somali Citizen Association runtii xafladda inay dhacdo waqti badan ayaan ku lumnay juhdi badan ayaan ku lumnay alxamdulilah waa noo suurtageliyey waana laba munaasabadood munaasabadda 26 June and 1 July iyo munaasabad la xiriirta la yiraahdo graduation ama qalin jabin marka alxamdulilah dadaalkiina waa ku guuleysanay waxaan ku faraxsanahay in caawin waji farxad leh uga soo hormuuqdo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Hyderabad markale waxaan leeyahay hambaliyo Soomaali weyn 26 June and 1 July assalaamu calaykum magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali Kuray waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kala qayb qaato walaalahay graduation-ka iyo maalintan kowda luliyo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka xafladatan aad iyo aadna waxaan uga xumahay dhibaatada waddankaygu maanta ku jiro runtii waxaan jecelnahay maadaama oo ardayda Hyderabad wax ka barata inaanu wax badan ka assalaamu calaykum هذا هو فرح سلامات حفلة أنا وسوي جرت لو مناسبات وكلا مالتي قل جبتي ذا ما قل جبتي ذي كلية مالتي وصومالي ودنا يورسوين الله يفرجتي ما أنت هذا هو فرح سنة حفلة أنا تبع على الله سواء أجاتمي ذات سواء أجاتمي روح عليها وكما تبين نماتين ووقت لودا ما كانوا فرشدنا إن شاء الله ذاتك مستقبلك عدادي نبو سوحوا عليها وفرشدك جدالة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله دمان نوتسو مالك كان محاضر همبلينا همبليكو هذا مناسبة كود لوليو همبليا أن لا يا دمان نوتسو مالك إلهي سنت كسرت كانوا جرسيو نبضي براري برواقو أنا وحنا كل ربع إن المتخنا مساواة نترتيب عن همبليا عبد الصوماليات الوسا دي خلي جبتوا وكقل جبت دمان مقالين كل دون دلك إنديا جعل المقال المدرسة جعل المقال هيدرباد رامسور ميسور أي مقال كسر دمان عبد الصوماليات أحمد عبد الولي Universal TV دلك إنديا بقى حيدرباد